السلام عليكم ريولي والرويال وين لما علي وناكسن وحان بريهان كوركلا الصعدة حالدها ان سوشيال ميديا كسو عصبون هذي nin la yiraahdo Daar Cali Sow oo kabiir ah aniga waxa waaye imaamadiisa garabka kuma haysan karo ninkaas face to face qofkii face to face uga hor taga markaas waa meeshaas waxa weeyaan waa hadii laga xog badiyo dhulka waa la dhigi karaa laakiin baashu intii war joogto iyo social media intii joogto anigu ninkaas waan kaga dambeeyaa runtii waa nin shar leh saas kale tan waa nin qayr leh waa shakhsi asxaab fiican leh dadka qaarkood waxay ku doodaan Daar Cali Sow ma leh ishaag waa laga shacbiyad badan yahay oo views-ka waa laga badan yahay laakiin sida runta Daar Cali Sow am content views helo ama ka badan ha helo views-kiisu waa saaxiibo nafta u hori kara tusaalahan ayub kabtan ayub oo kale 250,000 oo qof oo views ba daawanaysa laakiin 10 qof oo ma u heli karo nafta u horeysa oo saaxiib rasmi ah ma u heli karo halka Daar Cali Sow 50,000 daawata ama 25,000 daawata ay yihiin saaxiibo nafta u hori kara marka taas la isku dhaafay Daar Cali Sow ma yaqaano in IT iyo aqoon oo intuu YouTube ama Facebook ku jabsado ma yaqaan laakiin maadaama asxaabtiisu badan tahay wuxuu heli karaa siraha dadka uu heli karaa waxa yeelay bilo aadanka oo dhan dadka oo dhan waxay leeyihiin siray leeyihiin sirahaas oo qaar gacmahooda ku jira iyo qaar ka fakalay marka Daar Cali Sow wuxuu awood u leeyahay marka qofka inuu sirihiisa soo raadiyo oo uu heli karo ama ceebihiisa intuu soo raadiyo oo uu heli karo oo uu siideen karo laakiin marnaba Daar Cali Sow ma jabsan karo Facebook YouTube ma jabsan karo hal mid laakiin uu sameyn karaa hadii la taliyaashiis ay ka caawiyaan inuu YouTube fariisiyo maxay yeelay YouTube-ka lama jabsada laakiin waa shaqada laga fariisin karaa waxa lagu qabsan karaa copyright waxa lagu qabsan karaa video uu soo galiyo qofka lagu qabsan karaa sidaas oo kale dislike laftarkeeda hadii meeshii loogu talagalay la gaarsiiyo dacwadda video-yaasha waa laga saari karaa laakiin gabi ahaan lama wareegi karo lagama dhigi karo hanti aad leedahay marka Daar Cali Sow waa nin noocaas ah marka qofku haduu leeyahay saaxiibo oo u hori kara naftana uu ka roon yahay dad badan buu ka fiican yahay marka Daar Cali Sow waxa la saaxiib hadii aan isla joogi lahayn adiga sida biisadaas ku raamsan lahaa laakiin social media markii baasha ma hadal ciidamadaada ma haysto koobkaagana intaan saarana marka Daar Cali Sow waxaan ku leeyahay hore u soco inkastoo sharciga hadii lagu aadana barida dhulku lagu dhufan karo oo aad tahay nin maalin kasta la taagan hala dilo dad la taagan aad tahay Soomaalidu wali sharciga kulamaysan aadin balse Soomaalidu waxay kula aadi doontaa Soomaalidu sharci ma taqaan waxay kula aadi doontaa face to face baad u kulmi doontaan Soomaalida aniga say ila muuqato way hadaan ku sii socotid marka waxaan leenahay Soomaaliya hala daayo ninka odaga hala daayo ninkaas qabiil male ninkaas waa qofkii ay iskalaam buu waxa uma reebto haday ay tahay haday wax kasta tahay marka yaan qabiil ahaan loo fiirin horta mar number 1 maxaa yeelay qabiilkiisa intay waasheen bay xil xitaa u magacaabeen kaasoo xilkii iska casile mudan intay waasheen waxay dhaheen gudoomiyaha siyaasadda ay dhaheen gudoomiyaha siyaasadda beesha Sacad intuu Daar Cali Sow yaabay oo madaxa gacmaha saartay oo yiri si kumeel gaar ahaan in kugu hayna qofka doorta markuu iska casile xitaa nin qabiil ma ah haska qeyriyay haduu doono oo hawiya asaas iyo ciidaasan qabsanayna iyo wax wuxuu doonaa ka dhaco ma aha nin qabiil aniga weydii nin qabiil ma aha marka laakiin sanadkan baashu meel xun bay ka gashay laba qof oo isku family ah oo mid gabarta ay ka gashay marka waxaan leenahay odaga
seetada loo dabciyo hal iska dhaafo waa royal oo idin leh maalintoodii